Cadowgaagu waa kuma? Imise cadow ayaad leedahay? Cadow ma waxaad u taqaanaa qofka xoolihiisa kuu diida, ama ballan kaaga baxay, ama mar walba ku xasdaya? Ma ahan cadowgaagu kaa. Cadowgaaga dhabta ah waa kii Alle Subxaanahu wa Tacaala uu kuu sheegay. Cadowgaagana waa afar. Midka koowaad waa Shaydaan lacnatullaahi calayh, waana kii Alle Subxaanahu wa Tacaala uu yidhi: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Shaydaanku waa colkiina ee idinna col ka yeesha, wuxuuna ugu yeeraa xisbigiisa si aad uga mid noqotaan asxaabta naarta saciiro. Cadowgaaga labaadna waa nafsadaada. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Mana bari yeelayo nafsadeyda, naftuna way farad badan tahay xumaanta. Naxariista Rabbigay mooye, Rabbigayna waa dembi dhaafe naxariista. Cadowgaaga saddexaadna waa hawadaada. Alle weyne kor ahaaye wuxuu yidhi: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ka waran ruux Ilaahay ka yeesha hawadiisii oo Allah dhumiyey asigoo cilmi leh, oo daboolay maqalkiisa iyo qalbigiisa, yeelayna araggiisa dabool, yaa hanuunin doona Allah kadib, miyeedan wax xasuusanayn. Cadowgaaga afraadna waa adduunyada oo Allah Subxaanahu wa Tacaala uu leeyahay: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. haddaba waxaad ogaataa inaad afartaas cadow leedahay, waana afar cadow oo kala daran. Maxaa yeelay shaydaanku uma tagna inuu ku baadiyeeyo maahane haddaadan ka dhiganin cadow nafsadaada. Mar nafsadaada haddii ku hogaamiso oo aadan kala garin qaladka, oo aad saxeeda u qaadato qalad, qaladkeedana aad u qaadato sax, waxaad tahay qof ay nafsadiisa hogaamisay. Siday kuu wadana waxay ku geynaysaa jahannamo. Haddii aadan iska qaban, Allah ayaan ka meegigalnay. Hawadaada oo mar walba iska raacdo didiila aadan gaarayn, aad mar walba ka fikirto heer aad gaarto mar wax walba aad u samaysay didiiladaada darteed, iyadana waxay ku geynaysaa jahannamo ciyaadan billaah. Adduunyada wax kale maaha, waa adigoo qubaystay oo libistay, haddana shanlaysatay oo baxay, haddana aad malaysay inaad ku waarayso dhaldhalaalka beenta ah oo ilaawda wixii lagu abuuray iyo halka aad ku socoto. Adduunyadana si ay ku wado waxay ku geynaysaa jahannamo. Allah ayaan ka magan galnay. Waxaadna ogaataa waxaas oo dhan waxa u taliya Ibliis lacnatullaahi calayh. Haddii aadan fikirin oo naftaada xisaabinin, maalinta aakhiro waa lagu xisaabin, diidaya ama yeeshayaaba. Soo nagalama rabo inaan iska dhicino afartaas cadow. Qofka caaqilka wuxuu ku jawaabayaa haa. oo sidee baan isaga dhicinaa afartaas cadow oo aanan la arkaynin? Waxaad isaga dhicin kartaa kitaabka Alle iyo sunnada Nabi Maxamed aad ku dheganato sallallahu calayhi wasallam. waayo nabigu wuxuu leeyahay waxaan idinkaga tegay laba shay oo kala ah kitaabka Allah iyo sunnadeydii. Haddaba qofkii qabsada kitaabka Alle wuxuu iska dhiciyay afartaas cadow ee aan soo sheegnay. Qofkaan iska dhicinayo eedi nafsadiisa maahe, waxaan u dardaarmayaa nafsadeyda iyo tiinaba cabsida Alle. وبالله التوفيق.
wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.